xaaladii su'aal deegaanku waa deegaan la qabsaday dadkana waxa weeye qayb waxa ka bilowday diloo qaxda ka bilowday magaras waa tahay dad fara badan waa ka guuraya dadna waa xidhxidhayahay dadku xaggee bay u qaxayaan dadku waxay u qaxayaan meelaha hore xaggaas bay u qaxayaan qaar waxay aadayaan baadiye qaar waxay aadayaan tuulooyinka fufooy hadda colaada maaragtay intaas ka aloosnayn waa tahay dadka hadda guuray oo qaxay intee qoys bay gaarayaan ilaa 10 qoys waa baxday haye dadku badankiisuna waa xidhxidhayahay oo xaalad dagaalab bay arkaan oo foolxun meeshuna waa tuulo guryaheeduna waxay u badan yihiin ma garanaysaa sandaqado iyo waxaas dad qaxootiya kusoo biiray oo fara badan marka ma xamili karaan baabuurta dabada la soo gashay iyo colaadaas maaragtay faraha badan ee ay arkaan way ka shakiyeen sidaas darteed waxa weeye kulle dadka badankiisa marka deegaanka hadda yaa ku sugan deegaanka hadda waxa ku sugan ciidamada Soomaaliland waa tahay ciidamadu ma waxay dhex joogaan magaaladay dhex joogaan mise waxay joogaan meelaha u dhow magaaladana waa dhex marayaan xalayna waa dadku buushakii oo difaacu waxay la soo galeen magaalada agagaarkeeda iyo dhulkii magaranaysaa keenayaashooda ayay soo galeen oo difaaci maalinimo markay ka soo baxeen difaacadeennimay galeen waa tahay marka ma jiraan ciidamo kale oo halkaasi ka agdhow oo kuwa Soomaaliland aan ahayn ciidamada Puntland waa fadhiyaan marka iyaga laftoodu waa soo muuqdaan iyaguna xaggee bay ku sugan yihiin kuwa kale ayar bay isku jiraan iyaguna waxa weeye aagaas waa isku fadhiyaan magaranaysaa iyaguna waa ku dhow deegaanka waa laga barakacayaa sidaad sheegayso dad baa ka guuraya Soomaaliland hadda ka hor waxa jirtay waqtiyo ay deegaanka u soo dhawaatay maxay kaga duwan tahay hadda way ka duwan tahay hadda berigaas waxa weeye waxa iska gal yar oo yacnaha maalin iyo waxaas markay qabsadaan yacnaha ka baxayay laakiin hadda waxa u egtahay in military oo yacnaha u soo diyaar garowday inuu macnaha dadkan rayidka ah meesha joogayo yacnaha ay kaliska dhigtaan inay qabsadaan u soo diyaar garowday bal waxaad naga warantaa dhanka laamiga isku socodkii gaadiidka ee labada dhinac badan ma jiraan baabuur yar oo magaranaysaa farakutirsa ayaa saaka maraya ma marayaan baabuurkii waaweyn yacnaha waxa weeye waa ma jiraan kolley kuwa baabuurtaasi yar ee aad sheegtay soconaysa dhinacee bay ka soconayaan iyagu nooyinka magaranaysa rakaabkasi oo farakutirsa gurubada ama kuwa wareereen mooyaane ma jiraan baabuur kala shaqeynaysa waayahay marka ciidamo cusub oo hadda meesha la geeyay miyaa jira mise waa kuwii markii hore yimid taas waxa weeye awalba way fara badnaayeen xaggeeda dambena magaalada magaranaysa xaggeeda dambe xaggaasa ka dambeeya kalisyadooda meelaa iska jiraan galowgin laakiin de kolley wax hadda kusoo biiray xagga dambe waa dhinacee ma dhinaca Soomaaliland xigtaba mise waa dhinaca kale dhinaca Soomaaliland xigta labada dhanba yacnaha waxa weeye anagu shacabaan uma sahamin yacnaha marka waxa jiray customkii ciidanka Puntland markaas ay horay u deganaayeen hadda isaga gacanta ayaa ku haya wadana gacanta ku hayso customku waa cidla waxa weeye waa iska cidla waxa weeye furayahay walana kuma shaqaysto meelaha marka la isku hor fadhiyo maadaama customkii uu banaan yahay ma ka sokeeyaan tukaraq oo dhinaca Puntland bay ka xigaan mise xagga kale laga jira 10 kilomitir wadada u jirta oo isku hor fadhiyaan xagga Garowe